wax kasta oo maanta aynaan u baahnayn oo haddii wuxuun lacag lagu bixin lahaa in la joojiyo in maanta duruufta abaaraha aynu ku koobnaano marka qaybtan aynu maanta joognaa waa qaybta isku tashiga bulshada ay la yimaadeen waxaanu gudaha kaga jirnaa warbixintii la xiriiray xaaladda abaaraha iyo deegaanadii kala duwaneed ee la gaarsiinayay raashinkii macaawinadaha guddiga kala duwan gaarsiinayeen bal jaamaca macaf oo ka mid ahaa isaguna xubnaha guddigaasi ayaan wax ka weydiin doonaa su-aasha ay dad badan isweydiinayaan waxay tahay raashinkan yaa bixiyey ma dowlad baa bixisay ma dad baa isku tashaday laaso xarunteedii baynu joognaa sidaa su-aasha way weydiiyey suxufiguna waxa weeyaan arrintan abaaraha waxa qayb ka ahaa dawladda waxa kale oo aynu fariin u dirnay dadka shacabkii inay dadkooda waxay la qaban karayaan la qabtaan maadaama duruufta iyo waqtigu adkaaday marka raashinkani wuxuu ka yimi meelo badan qurba jooga dadka deegaanadan ka soo jeeda daniya duco shirkado waaweyn oo tourism ku jirto iyaduna qayb ka waxa qayb ka dadka dawladda dhexe iyo golayaasha ugu jira ayaa iyakuna qayb ka oo isku tashi bulsho iyo laftigoodu la yimi marka dad badan oo iyakuna ganacsato ah ayaa iyakuna qayb ka marka laba arrimood baa dhinac socda guud ahaan gobolka saaxil inay dadka deegaanadu iyakuna isku tashi bulsho sameeyaan waxay inta gurman karayaan gurmada waxa kale oo isna dhinac socda gurmadka dawladnimada oo dawladuna iyadoo qayb ka iyaduna wixii taagteeda iyaduna kolba ay qabato marka qaybtan aynu maanta joognaa waa qaybta isku tashiga bulshada ay la yimaadeen marka waxaan rajaynaynaa ayaamaha soo socdana in sidaas la mid ah iyaduna dawladdu in iyaduna qayb wareegeedii afraad ay ka qayb qaadato maadaama ay nagu laba jirtatay arrinta duruufta abaaruhu waxaan doonayaa inaan la wadaago halkan imika maanta caawimada maraysa waxay ka soo bilaamatay bildaaley halkan aynu joognaana maanta waa laasada cawo markaad hore u dhaqaaqdana guddi baa jirta iyana qaybteedii kaloo ka shaqaynaysa burco hawdkeeda iyaduna ka shaqaynaysa oo arrintan qayb ka marka waa u mahadnaqaynaa guud ahaan cid kastoo abaabulkan qayb ka ahayd iyo sidii dadkan caawimada loo soo gaarsiin lahaa inaan la fudaydiyo dadkii sidii waxaa loogu talagalay loo gaarsiin lahaa marka guud ahaan waxaan doonayaa in dadka shacabka ka soo jeeda guud ahaan gobolka saaxil iyo gobolada kale Soomaaliland inay duruuftu dalkeena ku sii adkaanayso dadkuna maanta gacanta dawladnimaduna maanta inagoo dhaqaalaha iyo duruufteena og aanay kaligood ku filayn in qof kasta halka jooga ka soo dhaqaaqo in duruufta abaarta laga qayb qaato wax kasta oo maanta aynaan u baahnayn oo haddii wuxuun lacag lagu bixin lahaa in la joojiyo in maanta duruufta abaaraha aynu ku koobnaano intuu ilaahay fijir khayr qabay noo furayo oo roob inoo daayo dadkeennii reer miyiga ahaa ee dhaqaalaheenu ku tiirsanaa ayay maanta duruuf adag oo abaari la tacaalaya marka waxaan ugu baaqayaa in cid kastoo codkaygan iyo fariimahaygan gaarayaan oo dadkeena gurmad buu baahan yahay qof waliba halku joogaha ka dhaqaaqo haddaad cid afurinaysa qaar abaara joogaha furi haddaad waqti kaliya lacag kale ku bixinaysa cidna waxaad ku bixisaa un cid dadka abaartu haya dadkeena ka midka haddaad wehelkaaga cidaad ka gaari karaysa haddaad ka gaadho qof reer Soomaaliland aad gaadhay